عجب تروح بلا عذر وتأتي بلا سبب فلا ظلها دان ولو طال أمنها وسل عن هواها كل من ودها خطب وسل عن هواها كل من ودها خطب ومن كان في هذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب ومن كان فيها ذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب ومن كان فيها ذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عنا wanaagsan daawadayaal meel kasta joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeennii ma u fiirsatay inuu kaga warramanay qadiyado kala duwan oo ku saabsan arrimaha bulshada ama u baahan inay bulshadu dib iska xasuusiso. waxaynu markan insha Allah tacaala kusoo qaadan doonaa ama barnaamijkeenana aynu kusoo qaadan doonaa arrin muhiim ah oo mujtamaca intiisa badan haddii uu ku dhaqmo ay bulshadu toosayso ay wanaagsanaaneso. mawduucaasi waxa weeyaan mawduuca iskaalmeynta ama dadku inay iska caqabtaan. waa arrin in fara badan culimada diinta islaamka waxay ka qabtaa inooga warrameen. sidoo kale markii mashaakil yimaadaan ayaa dadku waxay sameeyaan inay markaasi baaqiyo wax la iskugu qabanayo ay dowladdu soo saarto ay guddiga loo saaro dad fara badan ay ka hadlaan sida guddida abaaraha guddida dhibaatooyinka kale bulshada ku dhacda iyo wixii lamid ah. marka insha Allah tacaala barnaamijkan wuxuu ku saabsanaan doonaa maanta siduu islaamku u dhiirigeliyey inay bulshada wax isku qabato. waxaynu soo qaadan doonaa tusaalayaal dad bulshada u shaqeynaya oo bulshada wax u qabanaya waxa ay u qabanayaan dad fara badan oo mujtamaceena ka mid aanay la socon ama aanay ogeyn. marka koobaad inta aynaan bilaabin sidii dhaqankeena ahayd inaan idin tuso muuqaalada aan ugu talagalay inaad ila wadaagtaan. waxaan barnaamijkan insha Allah tacaala marka koobaad ku soo qaadanayna inaynu is xasuusino 2-3 aayadood ama xadiis oo ku saabsan mujtamacu inay wax wada qabsadaan si diinta islaamka u dhiirigelisay ama qofka inay ka soo go'do inuu sameeyo inuu mujtamaca wax u qabto oo mujtamaca u hagaajiyo oo mujtamaca waqtigiisa geliyo inay dadka qaybo ka mid ah ama bulshada guud ahaan ay hagaagto. waa u samafal ama ihsaan sameyn weeyaan. ilaahay tabaaraka wa tacaala quraanka wuxuu kaga warramay dadka ihsaanka sameeya ama samafalka sameeya inay yihiin dadka ugu wanaagsan isaguna uu jecel yahay ilaahay tabaaraka wa tacaala. quraanka waxa ku jirta in allaha ya'murukum bil adli wal ihsan إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. حتى أمر إن لي نوسي إن دتك سميان إن مجتمع وحو قبطان inuu qofku wuxuu qaban karo markaas wuxuu qabto. ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa kale oo ina faray oo inagu dhiirigeliyay inuu jecel yahay dadka wanaagida sameeya. wanaag ay sameeyaan ay cid kale gaadho ma naftooda kaliya wanaag sameeyaan wanaag ay sameeyaan inay dadka kalena anfacdo. nabiga kaleey salaatu wasalaam markii la weydiiyay dadka ayaa ugu fiican waxa uu ninka dadka wuxuu qabta ayaa ugu wanaagsan ee wax ka soo go'ay oo uu doonayo mujtamaca ku hagaajiyo ku dhex jira oo waqtigiisa qaybo kamid ah ku bixiyo. حتى ما هي وقت يسوع دن كبحيه إنه مركز بالشدة وحقبته لكن قيبة كمده أنت ونورش يساعد سنة مركز لقته إنه وقت يساع قيبة كمده ومركز كبحيه إنه إلهي كره ليج إليه إنه بالشدة وحقبته. أرنت أسوأ عارفين إنه مقن هذا يتمادنا حيالها ماشي كبحيلا وحكمده كردو فرق وين إنه لا شدت كون حياة قف وحقبة كراهتي وحقبته فضل فربنا بإلهي كتير ما سبحانه وتعالى قف bulshadu haday wax isku qabato. hada ilaahay tabaaraka wa tacaala quraankiisa waxa kamida inuu yiri in allaha yuhibbul muhsinin. ilaahay wuxuu jecel yahay dadka samawadayaasha ama dadka samafalka sameeya ee mujtamaca wax u qabta. sidaas oo kale ilaahay waxaan abaal marinayaa ku abaal marinaya dadka wanaaga adduunka ka sameeya ee bulshada qaybo kamida wax u qabta inaan aniguna wanaag aan siiyo ayaan ku abaal marinayaa buu ilaahay subhanahu wa tacaala. maxaa inaga doonayaa yeynu samafal sameeynana ma nafteenu kaliya samafal sameeynana may
waxaynu samafal u sameynaynaa labada waalid oo waajib inagu ah, waxaynu samafal u sameynaynaa qoyska ama xaaska, aynu samafal u sameynaynaa aabuhu wuxuu samafal u sameynaya caruurtiisa, iyo ummadda inta mujtamaca inta kale oo dhan ayaa samafal loo sameynaya. samafalkaas wuxuu noqon karaa wax gacanta laga bixiyo qofka haddii u baahan yahay la siiyo, ama saasoo kale wuxuu noqon karaa in mujtamaca lagu taageero, in la tilmaamo wanaagyada meelahay ku jiraan, bulshadu waxyaalahay ku helayso inay markaasi ay ku toosnaato, in la tilmaamo lafteedu waa qaybo ka mid a samafalka, qaybaha ugu waaweyn. samafalka waxaa kaloo ka mid a in jaarka wax loo qabto, waynu barnaamij gaara kusoo bandhigi doonaa haddii ilaahay idhaahdo. sidaasoo kale in wax loo qabto dadka baahiyaha gaarkaa qaba, sida barnaamijkii hore aan kaga waranay dad indhaha la oo indhaha wax ka qaba oo u baahan mujtamacu inay wax u qabtaan, iyo dad ku hawlan inay dadkaasi markaa mujtamaca intiisa kale soo gaarsiiyaan. barnaamijkii aynu kaga waranay ayaa wax loo baahan yahay si samafalku u dhamaystirmo, dadka baahiyaha noocaasa qaba, ama lugaha wax ka qaba, ama gacmaha wax ka qaba, ama indhaha wax ka qaba, ama dhegaha wax ka qaba, in markaasi mujtamaca intiisa kale ay wax u qabtaan, si aanay markaasi u qaadin inay markaasi bulshada ka didaan, ama aanay u arag in la faquuqayo. dadka oo dhan ayaa samafal loo sameynaya. ilaahay tabaaraka wa tacaala markaynu samafal isku sameyno ayuu isaguna samafal inoo sameynayaa, oo markaasi arrimahaynu u baahannahay inaga fududeynaya. waxaynu tusaale usoo qaadanaynaa qof ka mid a dadka had iyo jeer ku mashquulsan inay bulshada wax u qabtaan, khaasatan dadka indhaha ama dhegaha wax ka qaba. waxaan la kulanay agaasimaha qeybta dadka baahiyaha gaarkaa qaba ee wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda somalilan, agaasime cabdishakuur, oo aanu kala sheekaysanay arrimo ku saabsan siduu waqtiga u geliyo inuu markaasi bulshada inta aan waxba maqal ama aan waxba arag wax u qabto. waxyaaluhu cabdishakuur ka warramaya marka aad dhegaysato jirkaaga jireeraco ayaa marasa. wuxuu ku dadaalay inuu isagu meel hoose kasoo bilaabo, waxaan u gaarsiiyey waqti ay dowladdu la qaadato inay markaasi dadka gaarkaa wax loo qabto. waqtigiisa wuxuu ku bixiyey inuu dadka dhagahala uu soo gaarsiiyo dadka kale dhinaca aqoonta, dhinaca fikirka, iyo inay markaasi dadka isfahmaan, oo ah arrin adag. waxyaalahan aadka ula yaabay waxaa kamid a cabdishakuur markuu ii warramayay, wuxuu iga sheekeeyey dadkan inaanay haysanba xataa masaajidahay ku tukadaan oo gaara, oo khudbadooda lagu fahansan, oo khudbadda jimcaha ama muxaadaraadka ay ku fahmaan. cabdishakuur waxaanu isku baranay oon ku kulanay kulan ka mid a kulanada muxaadaraadka ee ka dhacay magaalada Hargeysa, oo uu keenay dhalinyaro aada u tiro badan oo markaasi dadka dhagahala ah ama dhagaha wax ka qaba, dhagaha aan waxba ka maqal, oo markaasi qabatay xarunta dhaqanka ee Hargeysa. sheekh almis ayaa muxaadarada geliyay, isaguna wuxuu isku dayay inuu u turjumo. waxyaalahan aadka ugu farxay maalintaasi waxaa ka mid ahaa inay sheekhu muxaadaradii u jeedinayay inay markaasi intay soo kacaan dadka dhagaali ay markaasi sheekha weydiinayeen su-aalo ku saabsan muxaadaradii u jeediyey, oo tilmaamaysa inay iyaguna fahmeen oo ay si fiican u fahmeen casharkii uu sheekhu soo jeedinayay. fadligaa waxaa lahaa cabdishakuur oo dadaal fara badan ku bixiyey markaasi inuu luqadda tilmaama uu ku fahansiiyey sheekh waxyaaluhu sheegay waxaa ka mid ah oo nooga warramay in dadka dhagahala iyo dadka indhahala in wax la baro hay adag tahay. dadka dhagahala oo dadka qaarintay kusoo dhashaan hay adag tahay markaasi in aad wax loo fahansiiyo. sidoo kale dadku iyagoo dhaga qaba intay dhaga beelaan ay markaasi dadka la socdaan afkooga ama dhaqdhaqaaqa dibnaha, dabeedna qaar ka mid a hadallada hay fahmaan, taasina ay markaasi ka caawiso inay waxoogaa mujtamac la qaataan. cabdishakuur waxyaaluhu nooga warramay waxaa ka mid a ee aadka u fiican, qaar ka mid a dadkii waxbaray inay maanta shaqaale yihiin oo isagaba ka mushaahar badan yihiin oo meelo fiican ay ka shaqeeyaan. cabdishakuur arrintaa ka warramaya ayaynu wada daawan doonaa, kadibna isku soo noqon doonaa. walaal anigu waxaan ahay wasaaradda waxbarashada ayaan ka shaqeynaa qaybta baahiyaha gaarka ama special needska. marka la yiraahdo special needska dadkeena ama wax yaqaan dadka curyaamiinta ama waxa u yaqaanaan dadka dhagoolka, laakiin horta way qayb badan yihiin, waa ilaa 13 category. imika haanse waxa si fiican uga shaqeeya waa 4 qaybood. waa qaybta dhagoolayaasha, qaybta indhoolayaasha, qaybta autismka dadkii guryahoodii ku hanjinay inagoo asaaska u naqaanay, iyo dadkii learning difficult ka ahaa aan waxba fahmaynin ama fahamkoodu ka sareeyay ardaygan la fadhiyo oo anagu aan fahan naqaanaba ardaygaas. marka 4taas imika wax shaqeynaya runtii jira. waaxdan igama bii horeen aniga aaskeedu marka hore unit baa la sameeyay wasiirka maaliyadda Marwo Samson baa markii hore
aastay kolkay xaaladaha aragtay iyo siday duruufaha ku gadaameen xaggii waxbarashada markii dambena wasiirkii nimanka joogay wasiir Cabdullaahi Dheere ayaa waax ka dhigay markuu arkay inay ka ballaaran tahay sidii hore walaal dugsiyada markii aan halkan imiday de horta from zero halkan ma ka sii bilownay bilow ahayd dugsiyada la keenay waxay ahaayeen 48 dugsi ayaa oo nacam special needs ka baxaya gaarka 6 gobol ayaa la soo qoray okay de wixii marka lagu soo qoro monitoring ba sameynaysaa deetana waxa sameynaysaa inaad wixii ka runay jira ee de la soo aan marka waxaan sameeyeen iska isku dirno oo aan monitoring ku sameeyo goon ogeyn dhowr jeer ku noqonon xaqiijino 22 dugsi baa noqday wax rasmi ah horta shaqeeya 6 gobol wixii 48 marka waa ka saarnay wixii de aan meel lagu soo hagaagaba lahayn okay iyagoo lahayn ha oo sidii NGO kale u jiraan marka wixii NGO de si soo jiray isaga cidina u dhawaan mayso laakiin de anagu marka waxbarasho leenahay waa inuu ilmihii dugsi uu la helo oo dugsi dhexe ka baxo sidii caadiga formal education-ka uu maro okay wixii markaa isku soo geynay marka waxay noqdeen 22 dugsi 22 dugsi de waa waaxaha nimanka wasaaradda sii jiray ilaa 19 qaar baa jiray marka 19 doonsi 2015 ama 13 ka tiraan waa la tartabaya waa very hard work waa shaqo adag laakiin haddaad dadaashaan waxaan aaminsanahay in zero is better than one insha Allah waxa sameynay inaan haddana tiradoodii koobno macallimiintii bayrolka ku jiray kuwii aan ku jirin imtixaanaadka la qaado sidii uga qayb qaadan lahayn macallimiintii oo u doodno waxaan bilownay markaa inaanu sameyno horta bal work plan aniga iyo teamka ila shaqeeyana ahna war halkee ugu daran halkeenu ka bilownaa marka waxaan sameynay inaanu priority-ga ka dhigano ardayda indhoolayaasha because west dandama ardayday baahida ka lahaa indhuhu secondary level ka gaaraan macallin aan bay u fadhiya marka de waajibkeygii markuu arday halkan soo fadhiisto secondary soo dhameeyo dugsiga dhexe soo dhameeyo de wixii ka rabaa secondary inuu galo secondary-gina wixii ka rabaa macallin aan tababaran marka priority horta waxaan ka dhignay ardayda baahida indhaha kale sanadkan inaanay waayin muxuu ahaa dugsi sare hela adigu baahidu ma yara laakiin haddii de maskax lagu yara daro waxa kolba waxaan sameyn karnaa inay meel yar ruqaansano marka wala tirada guud ee wadanka sign language ka horta aynu dagoolyasha wax ku barnaa Kenya naga soo galay Kenyan sign language baynu ku bilownay in waxaan u bedelnaa Somaliland sign language maadaama macallin khubaro ah haysano waxaan rabnaa inaan ugu yaraan bil la fariisto kelmado cusub soo baxa maalin walba marka kelmadii cusbeed ardayda midna arday Hargeysa joogto kale sibay u sameeysanayaan ardaygii Boran jooga sibay u sameeysanayaan hadhow kala duwanaanshay imanaya waxaana isfahan way waxay imanaya marka maadaama international sign language ka waxay imanaya inaa arday kala duwan soo baxaan marka taasina waa iyadna qorshaha labaad ee noogu xiga macallimiinta markaan tababarno indhaha baahida kale kuwa dhagoolka kale ayaan rabaa iyagana insha Allah inaan sign language ka miday inta waxbarasho gashay ama ka baxday tiradooda guud waan hayaa 639 arday ayaa jira 6 gobol marka la isku soo wada xooriyo waxa jira arday aan 639 ka badan oo guryaha fadhido aan arag laakiin wixii inta waxbarasho soo galeen ama macallin waayay ama dhaqaale ahaan waayay ama gaari curyaankii waayay 639 macallimiinteeda guud waxa weeyaan 89 macallin oo rag ah 19 dumar percentage-ka marka la isku geeyo 15% baa lagu qiyaasay in kastoo standardka dawladda tahay 15% haddana asana fahan 15%-gii ayaynu qaadanaa way jecel yihiin inay gawaarida kaxeeyaan in kastoo dawladda gelinkayga dambe waxaan sameeyaa gaariga kale intaan kaxeeyo ayaan soo baraa waxaan sameeynaa kale TV-ga translation baan sameeynaa universal oo kale si tabarucad markii hore ku bilaabay si ay wararkii qaar siyaasiyiin ku jira way inaga kale ardayga kan ku imanaya maanta kale xisbi buu taageeraa waxa qoray maxaa dhacay wuxuu doonayaa inaad warka dhergis adiga markaa waa inaad muxuu ahay u fudaysaa markaa si culayska adigana shaqadii aad qabato wasaaradda waxaan sameeynaa inaan TV-ga ku darno barnaamijka si ay warka halka uga la socdaan wixii fahmayaan halkan igu yimaadaan anagu waxbarashaan waan fulinay arrintaas ardayda imika 3 arday oo arday dawladda dhameeyay halkan ay la shaqeeyay xafiiskayga 2 qof oo baahan indhaha kale imika la keenaya magacyadooda iyagana waan qayaa ka oreeyay waa 5 wasaaradda warfaafinta jirta oo yar mawlid la yiraahdo jooga hodheelada qaar baa iyaguna qaatay oo barnaamijka fuliyay oo ka shaqeeya dadka service-ka sameeyaan waa la baray marka summer time kale way joogaan mansaar oo kale inaan kuuga weyn baa jooga
ambassador mandate bay tageen oo dheel baa u socda marka hoteelada laftirkoodu waxay sameeyeen muwaadinimadii way qayb qaateen shaqaale ka dhig horta standard ahaan manhajka ay dhiganayeen English baa Englishka aad baan fahmay sababtoo ah ardaygii markuu Englishka bartay uu loogu soo bilaabay xitaa ardaydeeni kale kaga fiicnaadeen English xilligii jaamacadda Amuud ay u dambeysay ardayadii ugu fiicnaa bay ka mid ahaayeen markay luqadda Englishka noqotay wixii English ku qoran sida ogtayna Englishku ka fududeeyay grammar ahaan Soomaali qofka sign language ka dhiga ama Soomaaliga dhiga ayaa garan kara grammarka Soomaaliga sidoo yahay marka Soomaaliga yahay kugu yahay wuxuu waxaan shantaas waxay rabaan shan sayno kala duwan Ingiriiska laakiin kolka waa it iyo was oo si baa loo yaqaan calaamadu bili laakiin Soomaaliga soo joogo haduu doon isbedela waxay iyadoo hayd buu waxaan noqon kara ha marka qofka Soomaaliga dhigay macalinka wuxuu garan karaa Soomaaliga sidoo adag asa grammatical marka ardaydu marka hore horta Englishka ka horeeyaan bartaan arday baa jirtay dhiga bashay oo markuu horaan ku soo dhalan marka ardaydaas waxay sameeyaan inay muxuu af Soomaaliga iyagu si fiican u sii baraan arday fahansiya maadaama ka si fiican macalinku iyagu day wada joogaan marka ardayga inta badan English wax ku barta aadiyad waxbarashadooda horta dhagoolka adag ninka baahida indhaha kale isagu markaad braille-ki barto alfaabeetkii bartay bataajadiisii wixii soo dhamayso hadda teebkiisa uu isticmaalaya uu ka wareegaya uu ku dhageysanaya sharax laakiin ninka dhagoolkii waxa weeyaan dhagoolkii waa si kala hooseeya qof waa dhagool ku soo dhashay oo waxa faraha ka tirin buu fahmaa qofna waxa weeyaan libis language kaaga u eeganaya afkaaga u eeganaya waa qof dhaga cuslaaday marka labadii qof baad haddana rabtaa inaad soo gaarsiiso marka labadii qof marka soo gaarsiinaysid macalinkaasi hawl badan ma wali xilliga rabadaan to macalinka waayo tamar buu luminaya oo gacmihiisa baa shaqeynaya wajigiisa baa shaqeynaya marka macalinka wuxuu guriga ku hooyanaya isagoo aad u daalay marka dhagoolka yara culus markii hore waxaan sameyn jirnay gaari baan qaadan jirnay horta miyadii ku badan dadka waliba dhagoolkii dadka inta badan miyadii ku badan yihiin midka marka iskool la furo waalid walba ilmihiisa haduu dhagool yahay waalidkii uu dhashay ilmo dhagool haysta isaga de kula soo dooranaya wixii magaalada laakiin markay miyiga tahay waxa ku sii xiray hadana miyigii de boarding ilmihii waa in boarding galo oo imika booramo kaliya boarding lahayd marka boardingka waa la feed gareyn jiray hay'ad commentator ayaa feed gareyn jirtay marka arday badan miyiga ay ka keeneen meeshii ku hayneen ilaa galaadka sideedaad u dhameeyay wax marka arrimaha xitaa aan hawl walba khibrad baa laga dhaxlaa marka waxaan rabnaa inaan waxaan leenahay xafiis fiirin wasaaradda waxbarashada waxaan rabnaa inuu laba iskuulo saddex santar oo midna uu noogu yaala Burco midna Hargeysa iyo ka boorame xoojiyaan in fiirinka loo sameeyo because ardayda marka waan soo xareyn karina oo miyiga waan ka keen karaa laakiin ardayga marka hadaan guriga aan ku attach karaysnayn de ardayga wax loo bari karay marka fiirinkaas wuxuu naga caawinayaa xaqii family hayn lahaayeen inuu naga caawiyo insha Allah ma sha Allah wad maasantahay Abdullaahi waxaan horta fari lahaa waxbarashadu ma laha naafanimo iyo takoor iyo kanaafsadana waalidku waa inuu fahmaa ilmihiisu inuu wax baran karo horta ama naafahaada miyaan ahaane waalidku waa inuu maskaxdiisa geliyo ilmahan inuu anfici karo because arday baa jirtay imika 2 sano ka hor madaxweynuhu qaaday oo jaamacadda Amuud dhameeyay oo qaar 1500 ku shaqeeyaan qaar 2000 ku shaqeeyaan de maanta kii dhaga qabiib uga fiican ninka 2000 ku shaqeeya maanta waa hawl fiican marka horta waalidku inuu aaminayo inuu ilmihiisu wax barto waxna tari karo ama indho lahaado ama dhago lahaado talabaad dadka waxaan kula talin lahaa ummadda horta wax isku fahantaa haddii la yiraahdo wuxuun keena dadku ma jeclayaan wuxuun keena la dadku waxay jecel yihiin kalluunka Abdullaahi kolku gudaha badda ku jiro waxa weeyaan cid ma iibsato laakiin markuu soo baxa bayaadkiisa iyo gaxash iyo noocyadu yahay dadku iibsadaan dadku waxa horta balinteeda wax barin dadka inuu madax isgelino oo halkay wax yaalaan raahno waxaan hayno isku darno meel way kala dardaran yihiin waan garanaynaa waan ururinay markaynu war kala qaadana ayaa war la helaa tala la helaa waxaan dadka kula talin lahaa marka sidoo kale culis bidin waan dareemi karnaa meelaha qaar baa u baahan in alaab yar u iibino meelaha qaar baa u baahan in sideeda loo caawiyo meelaha qaar baa u baahan abaara dhaca dadka indhaha badan baahida kale oo kale de waa dad aan soo shaqeysan karin waa dad u baahan de abaaraha inaynu markii raashin ururno ku darno Sheekh Khaliil oo kale wali ismaan arag iyo madaxweynaha waxay rabeen dadkaasi iyaga horta ugu horeysiino raashinada siino dadka waxa markaa kula talin ugu dambeyn inaynu isku nimaadno wada tashano dabadeetana wixii baahiyan qaban karna aynu qabano way meelaha qaar kharash badan oo u baahan waxay u baahan yihiin maskaxayna isku dar dadkeena ganacsatada waxa kula talin inaynu isku nimaadno deetana aynu tashano horta Abdullaahi qofba maskaxiisa waxba ku jira anigu intaanan maamul kaba noqon ilaa xilligan muxuu ahaayay aanan xitaa macalimada dhagoolka soo galin anigu waxaan aad u jeclaa Al Jazeera ninka turjumay interpreter-ka inaan wax qabto maskaxdeedu markii ay ku jirtay oo waxaan ka midha dhalino marka hawshii laba ay kala baxaysaa mid waa skill adig kugu xidhan oo inaad gudbisaa
ama lacag ku hel ama lacag ku hel waa adigu wixii gacantaada ku jira imika diiwaangelinimihii oo kale barnaamijyada diiniga ama tahriibka ama guurka iyaga anfaca wixii cabshakuurahan skill ku xidhan horta waxaan isku dayay inaanan free ka dhigo oo aan carruurta ku caawiyo wixii kaga xidhan dadna waanaad push garayso oonad ka seexan oo telefoonku wareeriso ood wada joogtaan oo marka dareenkan wuxuu ahaa dareen igu jiray ilaa yaraantaydii si aan bal waxaan insha allahu meel maxamed axmed cali bade waxaa lagu xantaabanaa waxbarashada aabihi waxbarashada maxaa diiday in la sameeyo aabihi special needs anu fishankayga waka daawadayaal waxaan u malaynayaa inaad si fiican wada fahanteen cabdishakuur fariinta uu sida oo ah in bulshada dad noocaas oo kale looga baahan yahay inay kasoo dhex baxaan si ay markaasi qaybo bulshada ka mid ah wax ugu qabtaan waxa laga yaabaa inteena badan inaynu ilowsanahay shaqada cabdishakuur hayo oo ah arrin aad u weyn qofku markuu niyadda ka shado inuu ilaahay ugu dhawaanayo niyadda uu gashado inuu mujtamaciisa wax u qabanayo taariikhna ay ka hadhaso sidoo kalena ay ka hadhaso markaasi qofka inuu markaasi dad soo saaro oo dadkaasi wax baro adigu daawada ma isweydiisay yaad wax u qabatay yaynu wax u qabanay adiga iyo anigu ciddaynu wax u qabanay ee maanta wixii aynu u qabanay ku naaloonaysaa waa ay miisaanka markaynu isa saarno aynu dareemi karnaa bulshada halkaynu kaga jirno fariintaynu sidnaa waxay tahay oo barnaamijkeenani sidaa dadku markay qabaan baahiyo gaara ama bulshadu qaar ka mid markay u baahan in la gacan qabto qofkii gacan qabashadaasi karaya inuu u degdego oo ilaahay ugu dhawaado ayaynu doonanaa inagoo uga faa'iidaysana bilaha khayrka badan sida bisha barakaysan ramadaan iyo maalimaha kale ee la midka ah ee aadka u khayrka badan aad baad u mahadsantihiin daawadayaal tan iyo kulanti dambe waa anigo cabdilaahi beershiya iyo kamarada uu inoo joogay uu inoo diyaariyey cabdiraxmaan gaashaanle tan iyo kulanti dambe dhammaantay waxaan ku dhaafanaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu تأملت والدنيا بها العجب والعجب تروح بلا عذر وتأتي بلا سبب فلا ظلها دان ولو طال أمنها وسل عن هواها كل من ودها خطب وسل عن هواها كل من ودها خطب ومن كان في هذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب ومن كان فيها ذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب ومن كان فيها ذا مقام ودولة